isbarbardhigga xidigaha ka soo kala jeeda qaaradaha Latin America iyo Yurub waxa ay kubadda cagta ka dhigeen mid madadaalo iyo tartan leh, waxaana ay u kala dhasheen wadamada Argentina iyo Portugal xilli ay bilada xidiga adduunka wadar ahaan ku guuleysteen 10 jeer, kuwaasi oo kala ah Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo. dhammaan mucaashaqiinta kubadda cagta ayaa u kala safta labadan xidig ee awood badan. qof walba oo kubadda cagta xiiseeyana waxa uu haystaa ciwaan gooni ah oo ah Lionel Messi ayaa wanaagsan ama CR7 ayaa ah midka ugu wanaagsan kubadda cagta xidig ahaan. shakhsiyan haddii aan anigu iska bilaabo waxa ila wanaagsan maya ma awoodo inaan doorto xidig sababtoo ah waxaan kadib doorashada aynu heli doonaa kommentiyo xanaaq ah oo ka imaanaya taageerayaasha CR7 ama kuwa Lionel Messi, balse waxa aynu muuqaalkani ku eegi doonaa haliyada kubadda cagta ama xidigaha ugu caansan ee jiilkan ee bahdilay CR7 isla markaana aaminsan in Lionel Messi uu yahay xidiga ugu wanaagsan ee koonkan soo maray dhanka kubadda cagta. Messi waa xidig mucjiso ah oo xirfadiisu ay aad u sareyso sida badi la isku raacsan yahay, balse CR7 ayaa mid sameeyay wax uusan ninka reer Argentina samaynin, waana ku guuleysiga koobab badan isagoo jooga wadamo kala duwan. dooduna ma ahan mid dhamaanaysa. waxaa jira xidiga badan oo sumcad ku leh kubadda cagta warkooduna uu meel dheer gaarayo oo muujiyay sida xirfad ahaan ay u jecel yihiin Lionel Messi iyaga oo bahdilay oo hoos u dhigay xidiga ugu dadaalka badan kubadda cagta caalamka ee CR7. si kale haddii loo dhahana aan aflagaadeynin Cristiano, balse fikirkooda u qeexay si aan gambasho lahayn. haddii aan ka bilaabno Neymar Jr. waxa uu aaminsan yahay ninka reer Brazil in la bulga uu wax badan ka dhil wanaagsan yahay Cristiano dhanka xirfadda iyo hanaanka maamulida kulanka. Eden Hazard xidig reer Belgium ee dhawaan ku biiray kooxda Real Madrid, isagu ma uusan ahayn xidig cadcadka ah markii uu oraah ku ammaanay Lionel Messi, Cristiano Ronaldo uu bahdilay ama uu hoos u dhigay, waana xilligii uu ku sugnaa kooxda buluuga ah ee Chelsea. mar wax laga weydiiyay cidda wanaagsan CR7 iyo la bulga waxaana uu ku jawaabay sidan: waa maxay Messi iyo Cristiano Ronaldo waa labada xidig ee taariikhda ugu wanaagsan kubadda cagta, waxaase jira hal xidig oo taariikhda ugu sii wanaagsan, kaasina waa Lionel Messi. hadalkani aad ay uga caroodeen taageerayaasha Real Madrid kadib markii uu xidigii hore ee Chelsea ku biiray kooxda cadcadka sabab la xiriirta in wiilka ay ku duulaantagi rabaan Los Blancos uu yahay taageera Lionel Messi. waxaana sheekadaasi qabow u sii bedeshay in CR7 uusan hadda joogin kooxda cadcadka, laakiin haddii uu joogi lahaa sheekadu waxay noqon lahayd dabbaasiin lagu sii shubay. Mohamed Salah Messi-ga masaarida dhaliyaha kooxda Liverpool waxa uu isaguna qabaa fikirka Hazard mid la mid ah isagoo kala doortay xidigahan, waxaana uu yiri Cristiano waa uu wanaagsan yahay balse Lionel Messi waxa uu ku sugan yahay heer ka sarreeya isaga. sidoo kale Gerard Pique waxa uu la soo ciyaaray labadan xidig ee kala Messi iyo Ronaldo. bilowgiisii waayaha Pique waxa uu waqti qurux badan la soo qaatay Cristiano Ronaldo intii ay wada joogeen kooxda United, sidoo kale waxa waqtigiisii ugu badnaa uu ka garab ciyaarayaa ilaa iminka Lionel Messi, waxaana uu kala doorashada labada xidig ku tilmaamay mid sahlan isagoo oranaya CR7 waa xidiga ugu wanaagsan xidigaha kubadda cagta ciyaara ee bini aadamka ah, balse Lionel Messi ma ahan bini aadam. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro aad ayaa loo bahdilay, kaliya kuwani ma ahan xidigaha iyo ahliyada Messi ku tilmaamay xidiga ugu wanaagsan ee kubadda cagta caalamka soo maray. Zlatan Ibrahimovic kibirowgan ka soo jeeda wadanka Sweden waxa uu yiri mar la weydiiyay xidiga wanaagsan Messi iyo Cristiano, waxaana uu yiri Lionel Messi waa xirfadle dabiici ah, CR7 waa xidig wanaagsan sabab la xiriirta dhanka tababarka, taasi oo ah farqiga u dhaxeeya. dhanka kale Delight wiilka cusub ee Juventus kabtankii hore ee kooxda Ajax daayarka uu wakiilka u noqday CR7 sabab la xiriirta in kooxda difaacanaysa Serie A ee Juventus uu Cristiano Ronaldo dartiis ugu yimid kadib wada sheekaysigii dhexmaray habeenkii gabagabada koobka UEFA Nations League oo ay Portugal ku guuleysatay, waxaana uu isagoo ka hor inta uusan ku soo biirin kooxda Juve uu sheegay in Lionel Messi uu ka wanaagsan yahay CR7. sidoo kale waxaa jira xidiga kale oo kubadda cagta ciyaara kuwaas oo iyaguna qaba in Messi uu ka wanaagsan yahay CR7, waxaana xidigahaasi ka mid ah
xidigaha kale ah N'Golo Kante, Marco Reus, Riyad Mahrez, Christian Pulisic, Insigne, Virgil van Dijk dhammaantood waxa ay taageereen Lionel Messi waxaanay cod dheer ku qeexeen in la bulga uu ka fiican yahay xidig walba oo kubadda cagta ciyaaray. waxaa jira xidiga fara ku tiris ah oo labadan xidig garoon la soo wadaagay sida Angel Fabio Di Maria kaasoo isna qeexay ciwaanka cidda wanaagsan Messi iyo Ronaldo isagoo leh sanadan 2019. Ronaldo waa xidig cajiib ah balse Messi waxa uu ka yimid duni kale. ma iloobi karno hadalkii la yaabka lahaa ee Raja Nainggolan sheegay sanadii 2018 kadib markii wax laga weydiiyay labada xidig isagoo leh Cristiano Ronaldo wuxuu u baahan yahay kooxda oo dhan balse Lionel Messi 4 ilaa 5 ciyaaryahan ayuu u goyn karaa kaligiis ayaana ku guuleysan kara kulanka. waa wax iska caadi ah in badi xidigaha kubadda cagta ay jecel u muujiyaan Lionel Messi iyagoo diidaya CR7 balse tani waxay ahayd ilbiriqsiyo shaqada kubadda cagta ay la yaabeen sida uu haliyay Wayne Rooney oo muddo badan ay isku koox ahaayeen CR7 oo xidiga ugu wanaagsan ee kubadda cagta soo maray ugu tilmaamay Lionel Messi. Wayne Rooney ayaa sanada 2019 ka hadlay isbarbardhigga labadan xidig isagoo yiri Ronaldo waxa uu ka yimaadaa garabka si uu gool dhaliyo. Messi ayaa ah midka ugu wanaagsan ee kubadda cagta sababtoo ah waa mid wax walba ka guuleysanaya. si la mid ah macallimiinta ugu caansan ee kubadda cagta qaarkood ayaa jecel u muujiyo Messi kuna tilmaamay xidiga ugu wanaagsan ee kubadda cagta caalamka waxaana kamid ah Pep Guardiola, Jose Mourinho iyo Arsene Wenger. macallimiinta waxaa kamid ah Fabio Capello kaasoo isna sanadan 2019 kala doortay xidigahan isla markaana dhinac u riday dooda labadan shakhsi isagoo cod dheer ku bahdilay joogdheer CR7 waxaana hadaladiisii kamid ahaa Cristiano Ronaldo waxa uu yaqaanaa luqadda Ingiriiska laakiin Messi waxa uu garanayaa kubadda cagta. dhanka kale qaar kamid ah haliyadii kubadda cagta soo maray ayaa iyaguna doortay Lionel Messi halkii ay dooran lahaayeen ciyaaryahanka lagu magacaabo Cristiano Ronaldo. tusaale ahaan Luis Dalima Ronaldo ayaa majalada Marca ee ka soo baxday Isbaanishka u sheegay sanadii 2015 kala doorashada labadan xidig iyo fikirkiisa. way adag tahay in la kala doorto labada xidig balse anigu waxaan arkay Lionel Messi oo meelo badan ka dhameystiran halka haliyada Ronaldinho, Thierry Henry, David Beckham, Raul, Pelé iyo Xavi ay qabaan iyaguna fikirka Ronaldo Fenomeno ama Ronaldihii weynaa ee reer Brazil. Francesco Totti ayaa 2017 isaguna yiri Messi waa kan koobaad ee kubadda cagta ha u ina Cristiano Ronaldo. okay waxaynu iminka sheegi doonaa fikirkeena ku aadan cidda wanaagsan labadan xidig waxaana taageero u nahay labadooda. nasiib ayaan ku leenahay inaan daawanay iyagoo ciyaaraya kaliya waxaan ka fikiraynaa sida ay kubadda cagtu noqon doonto marka ay ka fariistaan oo yaa bedeli doona xilliga ay kubadda cagta ka faaruqi doonaan. ma Kylian Mbappe, ma Vinicius, ma Neymar, ma Eden Hazard mise xidig kale. bal adigu fikir ahaan xidigee ayaad isleedahay wuu bedeli karaa Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi marka ay kubadda cagta ka fariistaan. magacaygu waa Shaafici Maxamuud Nuur Shaafinyo. aad iyo aad ugu mahadsan tahay daawashada muuqaalkan.